bismillaahi raxmaani raxiim walaaleyga soo dhawaad waxaan rabaa inaan maanta sameysano burka jumlada dhexda laga geliyo ama farmaajo saa u taqaanid waxyaabahaas meesha ka ii saaran ayaan rabaa inaan ka sameysto waxaan ka sameysanayaa caano bakeeri haafkiisa camal iska dheh 2 qaado saliid 2 qaado sokora jumlada dhexda laga gelina waa baashaas kaasna waxa waaye qamiirki iyo burki intaasaan rabaa inaan ka sameeyo wax ukuna ma loogu talagelin burkaan biyana iska qastin si uu kugu jilco hadii kala dhow adeega uu ka noqonaa ama ku qurux badnaanayo okay hadda ayaan arkaynaa sidaan isku dardareyno qamiirka mid qoyanaan haystaa ayaan ku darsada hadaa haysatan qallalan waa ku darsan kartaa sokorta ayaan ku shuba rabaa 2 qaado ayay taa adiga hadda saa qiyaastaada iyo inta burkaagu la eegyahay okay saliid ayaan ku shuba rabaa ayadana saliid ma badna waa 2 qaado oo qura okay marka hadda waxaan rabaa inaan ku darsado tii biskuutka lagu kicinayo ee bakinki ayaan ku darsanaa qaado markeedaan ku darsaday caana ayaan ku soo rafaaqa waa soo qasaa si jilicsan asagoo ayaan soo dhigaa waa isla arkeena maasha Allah waa kana waan daboola 4 daqiiqo kadib waa isku soo noqonaynaa sidoo ku soo baxo waa kana maasha Allah waa kana hada jumladii aan soo geliyay meedan tusin raali iga ahaada jumlada soo gali 10 daqiiqo ayaan soo qamiir soo daboolay saano ku soo baxay waa weyn wuu fuuray caana ayaan kor ka rabaa inaan ka marsado ukun hadaa haystid waa marsan kartaa caanahana waa isla meeshii okay marka ovenkan wuxuu ii joogaa 250 waa sii shitay markaan 10 daqiiqo aan u diray waa kana waa geliyay maasha Allah saano ku soo baxay saxankii dhan waa buuxsamaan ku dhahay maasha Allah sokorteeda ay ka karsan malab hadaa haystaa ku darsan kartaa kareemka cad haystaa ku darsan kartaa haddii aad ka heshay asxaabtaada la wadaag waa maasantihiin. Assalaamu calaykum.